maanta waxaa soo ifbaxaya raadadka biseelyarida naga haysata dhanka wada shaqaynta lakabyada kala duwan ee haykalka dowladnimada. haddii labadii aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqayn karno. haddii dowladihii xubinta ka ahaa dowladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqayn karno dowladda dhexe. haddii xisbiyada qaarkood ay ka cabanayaan in la caburinayo lana baalmarayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal. uma habboona in habdhaqanka siyaasadda iyo sida ay wax u socdaan wax laga bedelo maanta. waxaa intaas dheer walaalayaal, dareenka maanta dadkeenna ee gaar ahaan inta danyarta ah inaan ayadana meesha uu ku sugan yahaan wax isaga sheegno. walaalayaal, waxaa lagama maarmaan ah inaan tilmaamo muhiimadda ay leedahay ka fogaanshaha abuuris xaalado kala dhantaalaya cilaaqaadka dowladda iyo shacabka, isla markaasna luminaya wakhtiga qaaliga ah ee ay u baahan yihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed inay kaga tashadaan qaabaynta mustaqbalka. maanta waxaa muuqda jawi ay ku dheehan tahay cabsi iyo caburin. ciriiriga saaxada ma saamaynayso siyaasiyiinta oo keliya ee waxay sidoo kale saamaynaysaa dareenka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed oo dhan. tusaale ahaan, dadka danyarta ah ee noloshoodu ku tiirsan tahay dakhliga maalinlaha ah waxaa ka soo yeerayo cabashooyin ballaaran. kii gaari gacan ku xamaalanayay iyo kii gaari dameer ku shaqaysanayay iyo hooyadii ilmaha dusha ugu xamaalanaysay iyo tii waddada dhinaceeda shaahi ku gadaysay way ku adag tahay maanta nolosha, maadaama ay marar badan magaalada kala xiran tahay, isu socodkana uu adkaado. sidoo kale waxaa cabanaya kuwa ku shaqaysta baabuurta wax daabula, sida kuwa qaada badeecadaha dukaamaysiga xaafadaha, kuwa ka shaqeeya dhismaha ee daabula dhagaxa, carrada, nuuradda iyo wixii la mid ah, oo marar badan waddooyinka ay ka xiran yihiin oo aan fursad u heli karin in ay shaqaystaan si ay qutulyoonkii u helaan. sidoo kale, marka kii maalgashiga sameeyey ee dhisay hoteel bilicsan ee leh adeegyada shirarka lagu yidhaahdo laguma shiri karo hoteelkaaga, weliba si gaar ah shir siyaasadeed laguma qaban karo hoteelka, sow niyad jab kuma aha kuwa kale ee samayn lahaa maalgashi sidaasoo kale ah ee magaalada iyo bilicdeeda soo celiya. sow ma aha hoos u dhac sidoo kale ku yimid dakhliga dowladda ay ka heli lahayd iibka adeegyadaas iyo canshuurta kala duwan ee dowladda ka soo geli lahayd lacagahaas la isweydaarsaday, sow iyaduna meeshaa kuma baaqan. sidoo kale, hay-adaha dastuuriga ah si ay u qotomiyaan sharciyada lagama maarmaanka u ah dowlad dhisidda iyo dejinta siyaasad cad oo tilmaamaysa meesha loo socdo si aan loogu kala habaabin waddada dheer ee dowlad dhisidda loo marayo. waxay u baahan yihiin in la ixtiraamo, la garab istaago, loona madax banneeyo shaqooyinkooda loo igmaday ee ay u dhaarteen. waxaa hubaal ah oo aan shaki ku jirin in hoggaanka sare ee dowladda aanay ku heshiin oo aanay ku talin marnaba in dadka la dhibo. hase yeeshee waxaa habboon maanta hogaamiyaasha dowladda inay ka warqabaan